jaaliyadda tanade ee ku nool North America gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa si weyn u taageertay go'aankii dhawaan ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada Kalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Beeshani ayaa sheegtay in ay kalsoonidii siyaasadeed kala noqotay dowlad goboleedka Puntland. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ogaaska siyaasiyiinta aqoon-yahano waxgarad culamaa u diin haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulankan ka hadlay hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa iyo jaaliyadda tanadaba ay iskugu yimaadeen caawa inay tahay inay taageeraan shirkii ka soo baxay Kalkacyo oo ay taageereen dadkeenii xagga joogay haddaan nahay reer Mareykan haddaan nahay reer Minnesota iyo tanadaha degan dibaddaba annagana waan la qabnaa anigoo aadan ugaas Axmedna waxaan leeyahay shirkana waa noo furan yahay ugaas Axmedna wuxuu oran jiray iyo ugaas Maxamed ba ku celcelin jireen war ininkana isnabadgeliya ummadana nabadgeliya annaga haddaan nahay tanade bari baan degnaa nugaal baan degnaa mudug baan degnaa Puntland baan ka mid nahay kalsoonida ayaa lagala laabtay siyaasadeed waxaana soo go'aamiyay siyaasiyiin odayaal isimo annagana dadkeena jooga qurbaha waan la qabnaa waxaan leeyahay Puntland waxaan ku leenahay Puntland dadka shacabka ah Puntland ku dhaqanna runtii waa walaalo waa dhaliyo waa isku dagaan ma kala maarmaan bulshada Soomaaliyeed bay isu xigaan laakiin siyaasadda maamulka dadka gacanta ku haya baa waxayna ka haleeyay ayagii baan wax isku haysanaa eedkeedu waxa weeye taageerada beesha tanada go'aanka ay qaadatay oo laba bilood iyo barna garowga ka soo socday shirkaas laba bilood iyo barna Kalkacyo ka socday go'aankiisii taageeradii ay qaadatay beertu ayaan taageeraynaa ayadaana ku go'anahay go'aanka iyaguna annaga caawa halka aan nimid kaas weey dulqaad waa dhamaaday inaan kala dareerayno iyo inaan wada daaqi oo daawada dhiganayno adinkoo inoo wada danayn maanta kala doorta waxay ka dhisantay 3 urur oo walaalo ah oo deegaankaas Puntland la yiraahdo wada degaan badidood waxayna ku dhisantay 3daas urur in ay hogaamiyaan ku wada noolaadaan dheef iyo dhaqaale wixii ka helana wada yeeshaan haddii urur ka midii ka baxo waxba u dhimaysa siyaasadii Puntland waan xaqiiqdii maanta tan keentay inay beeshu saluugto kalsoonidina kala noqoto maamulka waxaan iri anigu nin reer Garoowe baan ahay waxaan idin cadeynayaa tanada inuu halkan ku kala maqnayn meel kasta uu joogo inuu arrintan taageeradeeda mid u yahay sidoo kale waxay jaaliyadu hoosta ka xariiqday in loo hogaansamo dhaqangelinta go'aanka beesha ay ka qaadatay maamulka Puntland oo ay ka mid ahayd dadkii aasaasay Puntland 1988 محمد موسى نور داق درجة يونيفرسال TV Minnesota